بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان عاود دب ugu noqonaynaa siiradii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo darsi cusub. Ramadaankii ayaan joojinay siirada maalmihii ugu dambeeyay ee iida ahaa. maanta marka waxaan ka sheekaynaynaa hijradii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu u hijrooday iyo duruusta laga qaadanaya arrinkaas. waxaan maalintii hore ka soo hadalay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo Quraysh ay u heshiisay in la dilo iyo sidii dilkaasi Ilaahay uga badbaadiyay tabaaraka wa tacaala. waxaan soo maray Quraysh oo daaru najwa ama baarlamaankoodii ku qabtay shir oo isugu yimid ayagoo odayaal kala duwan oo qabiil kasta nin matalaya ah. shaytaan isku soo magacaabay oday ka yimid gobolka Najdi oo kaaba qabiil ah inuu kala soo qayb galay oo uu shirkii wax ka gudoominayay oo go'aan kasta oo la soo jeediyana uu mucaaraday ilaa go'aankii ugu dambeeyay ee noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam in la dilo. waxaan soo maray nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu ka baxay guriga iyo arrimihiisii baan halkaasaan ka bilaabaynaa maanta. waxaa dhacday Quraysh markii ay dadkii muslimiinta ayoo hijroonaya markay arkeen ayay waxay isugu yimaadeen shir degdeg ah oo lagu qabtay guriga la yiraahdo daaru nadwa. shirki marka la isugu yimid ayay waxay bilaabeen inay isweydiiyaan maxaa nabiga ku sameynaa sallallahu alayhi wasallam. ninkii ugu horeeyay ee hadlay wuxuu noqday nin la dhihi jiray abul aswad oo yiri nukhrijuhu min ardina, dhulkeennaan ka bixinaynaa Muxamed, wa nuslixu amrana, umuurteennana waan hagaajisanaynaa, walaa nubaali ayna dahaba, meeshuu aadayna dan kama lihin, hana dhaafo, meeshuu aaday dan kama lihin, aan iska bixinno. waxaa hadlay odaygii Najdi matalayay oo shaytaan ahaa. markaasuu wuxuu yiri innakum tarawna xusna xadiithihi, war ninkan sheekadiisa quruxdeeda waad aragteen, wa xalaawati mantiqihi, hadalkiisa macaankiisa somaydaan arag, wa ghalabatahu calaa quluubi rijaal, ragga qalbigooda su uga qaalib noqdo somaydaan arag. macnaa markuu wax u sheega ragga qalbigoodaba wuu hananayaa markiiba oo qalbigiibuu wax ka dhaadhicinayaa somaydaan arag sida uu qulubta dadka ugu hanta markaba. wuxuu yiri war hadalkaasi hadal ma ahane, ninkan haddaad bixisaan intuu qabiilada carabta ka mida ku dego oo uu raggooda soo gaashaanbuursado oo uu idinku soo duulo ayuu qoorta idinkaga istaagayaa oo idin laynayaa ee ra'yi kale bal fiiriya. waxaa hadlay nin oday ah oo la dhihi jiray abulbukhtari. waa ninkii caanka ahaan hore usoo maray inuu markii waraaqda la jeexjeexay qayb ka ahaa. markii horena dadka markii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Talib iyo ay gosha ku jireen dadkii wax u geegeyn jiray ka mid ahaa ayaa hadlay. markaasuu wuxuu yiri ixbisuuhu wa aghliquu calayhi albaab xataa yudrikahu ma adraka ashucaraa qablahu. war ninkan xira, albaabka u xira, meeshaana ku ilaaliya ilaa wixii gabayaadii nimankii gabayaasha ahaa ee ka horreeya ku dhacay ay ku dhacaan. sababtoo ninka gabayaaga markuu dadka caayo aflagaadeeyo meel baa lagu xiri jiray ilaa ay geeridu u timaado. wuxuu yiri saa sameeya, meeshaas ku xira. odaygii baa hadlay, sheekhu najdigii, waa ninkii shaydaankii weeye, yaa wuxuu yiri haddaad xirtaan asxaabtiisii baa maqlaya, marka ay maqlaanna aabbahood iyo carruurtooda isagay ka jecel yihiin
ويكسو دوليان إلى أي إذن كقالب نقضان وأي دايان الرأي كلا فيريا. قال طاغية أبو جهل طاغي كيف نكي ملعون كها أبو جهل أيها الله أو حيري إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد أنا رأيي بان أركا أنا أركين إن دولي أوافق ذين رأيك أدكو استاكتين وامحي رأيك نأخذ من كل قبيلة شابا قبيل كستوحان كقبرينا نن يرى جليدا وحبا نصيبا ونسب وناكسا وسيطا فينا حادا ضدك إنه بوحلية كمذا ونعطي كل منهم سيفا صارما متكستوحان سينا سيف أفضل ثم يعمدون إليه ويضربونه ضربة رجل واحد انتي أقستان بيهل نن كل فشدي سوء كلمة كل فنيان فيقتلونه ويدليان فيتفرغ دمه في القبائل إيجي سيبا قبائل كالتقية فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم عبد مناف مركا ما أودان إن قريش أردن لدقالمان فيرضون بالدية دية هالي كنا قانيان فنعطيها لهم مركزا سينا دية وحليها أبو جهل أنا وحانو أركا قبيل كستة أو نغمدة إنا كسو قبنويل دالين يراء أو حوق بدن أو نسب وناكسن أو دادك دحضوضا دادك دحدحاتك أو كدح مغضاء أو سيف أنو ديبنا ميت كستة أو هالمر انتي سوي مادان أي سيفاس هالمر كل ميان oo ay saa ku dilaan dhiiggiisu markaa uu kala tago oo qabaa'ishii uu u qaybsamo oo hadhow reer cabdi manaaf qabiil ay ku duulaan ay garan waayaan diyadana ay ku raali noqdaan oo saa ku qaataan odaygii najdi baa wuxuu yiri waa shaytaan ibliis weeye wuxuu yiri alqawlu ma qaala ar-rajul hadalku waa hadalka ninku yiri ninkani hadalka uu yiri weeye هذا الرأي الذي لا رأي غيره رأيك عن رأي كدن بين وكاس تلا عن تلكل كدن بين تاسوي قاتل نميو قرار كيساسو كفلي أو كوجو آميين إلا فليو وما حيقو أنكو نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا الدلوي روحات في رسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو مكجوجا أو ضد دفاع مجران أبو بكر يقول قف أو كلام هري مسلمين توي كلا عررين ومستضعفين ومركو إلهي آيات القرآن كأوسود الشين يقولها الضوامضة إذا أشيغا قلك إله وواسع هجرودا إن أرض واسعة فتهاجروا فيها قلك وواسع هجرودا كلا ياعا لير مركا قف والبا إلا اللي يري قف كقالضا لحظة كهرة أو جوغا أو قف أولا إنه بحدوث الضمر أما الرد أما قف ضعيف أو سعون واي أما قف لها يستوى صراحين أو قال أويري مركو لمن يا ملائكة أوديسو قالوا فيما كنتم وحيلين قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا وحيلين ملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وقلك إله واسع ما تجروتان فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلهي وحي النار بيجلد وانا كواس آيات كاسبة سود دقيقي ضدك ويكلا عررين نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر يا دور قف أو كلابا هري يا علي بن أبي طالب أو عنو يا هري مركاسا النبي صلى الله عليه وسلم وحو أبو بكر فيري انتاس وحولي يا رسولك الله ما بحا نبي وحولي سك وحاديع كرتا إن لا إدمو إن عم بحو إريادي محا مركا دعضي قريش مركا قوان كاقالين فيري بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى قريش واحد دبريتان كودي هي قامضودي ومال قامض إلهينا ومال تبارك وتعالى وحاد على مركا عقلبو حكينيا قوان ساس او كلاء او سيدا قدام بيسا وباهان إن الله حفظيو او الله إلاليو او أصبحين إن لا إلاليو وحدك دقاقة أو إسبدل المجالة إن لقد دريمين عاون النبي صلى الله عليه وسلم لقد تخلصوا للدلو فيري مجالة دي دنوي دقنتهاي واحد يبقى الله ما دريميو وحي اسكو ديان إنا وحبل الدريمين
magaaladana wax walba ay normalkeedii ku socdaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ku soo degay jibriil alayhi salaam markaasuu wuxuu u sheegay shirqoolkii iyo makrigii ay quraysh makrisay wuxuuna yidhi inaad baxdid oo hijrootid waayo oo carartid wuxuuna u xadiday waqtiga uu baxayo waad baxaysaa waqtigaas baadna baxaysaa way nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuuna u cadeeyay sida ay maanta quraysh ku shirtay iyo wixii la go'aamiyay buu u cadeeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri caawo gogashaada ha baryin meesha seexan jirteen ha seexanin fiiri waxaan dhihi karaa oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam soo ma awoodo inuu dhaho allow iwaardiyey waan seexanayaaye waa ilaahay wuu awoodaa laakiin ilaahay wuxuu sugayaa sunnada alle inay tahay qofka mu'minka in la imtixaamo oo lala dagaalamo oo la ciriiri geliyo oo asaguna uu sabro oo uu xeeladaysto oo uu isku dayo dhibka inuu ka baxo weey nabigu sallallahu alayhi wasallam waqtigii hargalka ahayd adhahiira waa midday waay maalinta dhexdeeda markay ahayd buu nabigu soo baxay sallallahu alayhi wasallam markay dadka guryahoodii ay nasanayeen ee ay naabka qaateen intay qadeeyeen sida caadiga ana nabigu sallallahu alayhi wasallam waqtigaas ma soo bixi jirin guriga abubakar buu aaday abubakar gurigiisa markuu soo galay albaabku gargaraacay qof baa albaabka fiiriyey markaasuu arkay nabigii sallallahu alayhi wasallam oo taagan oo wejigana dabooshay oo xirtay oo isqarinaya nabigu sallallahu alayhi wasallam suyi waa nabi muhammad oo haddana isdaboolay oo isqarinaya abubakar intuu booday buu wuxuu yiri biabi huwa wa ummi aabbaha iyo hooyaday ha luu furtee maa jaa bihadihi saaca ilaa biamrin wala saacadani arrin adag waxaan ahay nabigu uma imaanin sallallahu alayhi wasallam albaabkii buu ka furay nabigu markuu soo galay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri akhrij man cindak dadka kula jooga bixi abubakar nabigu wuxuu yiri abubakar wuxuu yiri inma hum ahli ya rasuulullah rasuulka ilaahay ehelkayga weeye labadaydii gabdhood baa ila jooga waa asmaa iyo caaisha radiyallahu anhuma baa ila jooga qof kalena lama joogo markaasuu nabigu fariistay sallallahu alayhi wasallam markaasuu yiri waxaa la ii idmay inaan hijroodo oon baxo abubakar baa soo booday oo wuxuu yiri rasuulka ilaahayow aan ku raaco aan kula saaxiibo wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam nacam haye waad ila saaxiibaysaa caaisha waxay tiri wuu ilmeeyey abubakar waxay tiri maalinta ka hor uma aana malaynaynin gabar yar bay ahayd qof bini aadam ah farxad inuu la ooyayo abubakar radiyallahu anhu wa ardaa ma u jeedo dhibaatada iyo ciriiriga iyo waxa khatarta ku hareeraysan maanta nabi maxamed in la raaco sallallahu alayhi wasallam khatarta ay leedahay ma mooga waa macnaha waa suicide camal qof qaadanaya in la dilayo oo uusan badbaadaynin baa qofka caqligiisa u soo degdegaysa khatarta intaa laag uu qaadayo laakiin haddana jacaylka uu u qabo nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu raaco oo uu la saaxiibo baa wax kasta kala weyn oo uu la ooyay farxadeeda waxaan kaloo ka qaadanaynaa qisadaas markuu abubakar leeyahay radiyallahu anhu waa ehelkayga oo gabdhihiisii fadhiyaan sirta qoyska in la xifdiyo oo carruurta lagu tarbiyeeyo oo carruurtaada kalsooni aad ku tarbiyeysid qiimaha ay leedahay abubakar gabdhihiisii yaryaraa inay ag fadhiistaan oo uu ka sheekeeyo sir intaa la eg oo ay ilaaliyaan oo ay xifdiyaan radiyallahu anhu waa tarbiyo uu ku tarbiyeeyey carruurtiisa weeye oo ah inuu ku tarbiyeeyey wanaagga iyo sir ilaalinta iyo kalsoonida waalidka iyo dadka isdhalay ay isku qabaan inta ay la eg tahay lagu tarbiyeeye weeye haddaad maqashid tarbiyo wanaagsan tarbiyadaas weeye gabadhaada oo yar oo canug yar ah oo jirta 7 sano ama 8 sano ama 9 sano ama 10 sano wax la mida inaad u ogolaato inay ku ag fadhiisato oo aad
السر في الغاية ماشا قدام بيسا سرتا القادته أو آمنيس أو كل جيسنيس أو كل صواناته ونوع تربية أو عروض تلو تربية وي مركزو حليه هاي وحيلة عائشة أو بكر وقوي من أنا لينين قف إنه لقوي فرحت نبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر هشيس بيقلين عاوة إنا يبحان نين لي هذا عبد الله ابن أريقد عبد الله ابن أريقد ونين قال مركز مشرقة عبد الله ابن أريقد الليثي بالي هذا وأنه وضد يقانا ومكية مدينة دحوة وضد الذي كروا دليل وي أدو يقانا بكريستان أبو بكر وحوط يارصد رضي الله عنه اللي بقيل له سوي رسولك إلهيو لبدان حالات بانو دياري لبدان حالات بانو دياري نين كان وانو سو دياري وانو وضد أدو يقانا وحين كلاب اللمان سدح بري كدب قد كلي هذا غارو ثور إن أي أوي ماذا أصغى هليه ولا أنتو لبدا حالات علفيه أو إلاليه إنه هالكا أقو كانوا بكله الشيئين أبو بكر مركا ينبي قبا صلى الله عليه وسلم وحي إسكا آذين أمور تودي عادية أهيد إنا قفنا الدريمين وأن وحبات بسبدل ألا دريمين إنا وح أقيا هاي أي أقيهين بإسكا قلين نبي صلى الله عليه وسلم عاددي سو حكم إذا هيد وعادة قفك مسلم لعل الله إنه إلهي إنه أرزقه راعتان كالنبي صلى الله عليه وسلم صوت السنة النبي إلى أن راعنه أفين وناك سوي اليوم أحمد بن حنبل بقى وحالي نين بقى أصل قالوا وحكيري كيف أصبحت يا إمام سيد كوا بريستي صوى حنوصا بقى حيري كيف أصبح سيبو كوا بريستا رجل قفي يطالبه الله بالفرائض بأداء الفرائض قف إلهي فرض ككره وإنه لي ماذا والنبي صلى الله عليه وسلم بالسنن نبي السنة دي سئنه راعه وكرهه وملكاه لبدا ملقنا وحيكد البيان بتحسين العمل إنه عمل كهجاجيو أيها شقاوة محي عمل كهجوان أكسن إنه في ريان ونفسه تطالبه بهواه نفتي سنة هوديسة دساير كوحا وجعلها إنه راعه بيكون خصبيسا وإبليس يطالبه بالفحشاء إبليس لو حقوقك كو خصبيا أو كو إنفايت جرين يا حمان تبوير وملك الموت يطالبه بإزهاق روحه ملك الموت لو حقوقك كل هذين يأنو نفتك قاضو والقفك السيديب كوا بريسان كرا حالة أنه ساسوي النبي صلى الله عليه وسلم إنا راعي السنة ديس واسكا كنت الله إنا فرض كو أمري الفلسين لبدا ملك إنا إلى الاستوحة قريان نفط هذا إنا كإلاليس هوديدا شيطانك إنا فحشغي حمانتيسا إيو معصياديسا إسكا إلاليسين ملكموت كان إنا إسكا إلاليسين ساعة غفلة ذو كجرى إنكو خبط مركا النبي محي أهل عادديسو لقن كالنبي صلى الله عليه وسلم همينك قيب طهرة مركو عشاه تكذو كدب بوسيحان جري النبي صلى الله عليه وسلم همينك نسكي سمركا لدقارو همين بركي أيو انتو بحبو مسجد كل حرام كانتو تغو بكنتو كنجري صلاة الليل صومدهن إلهي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه الله وحو أغاذي نبي محمدو إنا استاغتو وح كله همينك صدح ميراد لبا ميرادا كاميرا بتاغنته wuxuu kaloo og yahay mararka qaarkood inaad istaagtay hameenka nuski mararka qaarkoodna inaad istaagtay hameenka saddex meelood meel ka mid ah ilaahay baa ku og inaad saa samaysay inna rabbaka ya'lamu annaka taquumu adnaa min thuluthay al-layl saddex meelood laba ka mid ah wa nisfahu ama nuskiisa wa thuluthahu ama thuluthkiisa inaad istaagtid marka wuu baxaa همينك نسكة مركا لقارو بالنبي بحا صلى الله عليه وسلم كعبضو التقا صلاة الليل أيو كتو كذا مركا همينك سوحو يري عليو صرير تيدي كسيحو لبعتنا كما أسيبيس علينا كالسوني وكوكا ببلنقات كالنبي صلى الله عليه وسلم إيا بلنقات كالله أيو كوكا رسونا هذي صرير
مخاطر iyo khatar danger ay saa ugu wareegsan tahay inuu seexdo hameenkaas isagoo og inay wax kasta suurtageli karaan ayuu haddana wuxuu rumeeyay hadalkii nabigu sallallahu alayhi wasallam dhibaata kuguma dhacaysa ee sariirtayda caawa furaashkayga caawa ku seexo dadka badankoodii markii ay seexdeen ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam buu soo baxay horta markii waxaa la yiri dadkii markii xoogaa ay seexdeen oo hameenkii qayb ka mid ay tagtay arrinkii ay kala degtay oo jawiga uu kala degay bay wiilashii yimaadeen wiilashii loo ballan qaaday nabiga inay dilaan la amray ayaa yimid markaasay waxay isku wareejiyeen nabiga gurigiisa sallallahu alayhi wasallam si sir ah daaqad bay fiiriyeen markaasay waxay arkeen cali ibn abi talib oo ku hurda furaashkii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa guri yar oo iska mutawaadica oo waxa ku jira la arkayo oo hameenk nabiga sallallahu alayhi wasallam macawistiisii cagaarayd ee la jiray macawistii xadramiyada ahayd ayuu huwan yahay cali الحالي هذا البردة الحضرمية الأخضر معوستي عقاريد حضرمي أهيد يمن إمالا صالحا كان مركاسي النبي أملايين صلى الله عليه وسلم فأخذوا يختالون زهوا وحيقول لك لأن يعني كبر استجابيان حرقوا أي نهان وأنت شقدي وصير أي نهان everything is under control wax kasta waa sugan yahay xaaladdu waa sugan tahay waa sidii la rabay farxad wayarsuduunahu way u dhabagelayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam bay dhufays ugu jiraan xataa idaa qaama wa kharaja ilaa markii nabigu uu istaago oo uu rabo inuu kacbada u baxo yathibu calayhi ay ku soo boodaan bay rabaan ballantoodu waa maxay aan dhufays gallo aan isqarinno markuu hameen barkii soo baxo hal mar aan ku soo boodna inaga dhan oo aan qabanno oo aan dilno ayaga ballantooda saas weeye allah tabaaraka wa tacaala ayaa ka jawaabay shirqoolkoodii allah wuxuu yidhi waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin وإذ يمكر بك الذين كفروا مركا أي كشير قوليين كوي قالوا بي ليثبتوك إني كحيران أو يقتلوك أما أي كدلان أو يخرجوك أما أي كبحيان ويمكرون والشر قوليان ويمكر الله الله نو الشر قوليا والله خير الماكرين انت وحشر قوشنا الله كخير بدن wax mid kasta oo wax shirqoola allah ka khayr badan allah ka shirqool badan allah ka awood badan weeye mid kasta wax shirqoola wa bayna tadbiir quraish wa tadbiir allah azza wa jalla wa makrigi iyo shirqoolki quraysheed iyo shirqoolki allah iyagu u shirqoolay wala fiirso qofkii shirqoola oo isku daya inuu dhakro oo isku daya inuu dabandaabiyo allah ka argoosta tabaaraka wa tacaala marka u fiirso adigu خروجه صلى الله عليه وسلم من البيت نبي جيبا قرية كصوب حي وأنت اللي سوقي نبي جيبا صوب حي صلى الله عليه وسلم أيوه كوريكسن مركو النبي صوب حي صلى الله عليه وسلم أيوه حوق هذا عيد دبعات كأمكو عيد كاميرا مركاسو انتو ويلشي سوكر استاغي أيوه عيد ديبو متكست مضحك غشوي ويلشي ما أركان إنه دي الله تري مركزوه حليه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم وحان هرتو هذا سدا لفيس بان دربي إنه بان كقبن ومن خلفهم سدا قلاش وضنا وان حري فأغشيناهم وان إنه تري فهم لا يبصرون أي وحما أركان فأخذ الله بأبصارهم إنه بقى الله قبتل وحما أركان النبي صلى الله عليه وسلم وحما أركان قب ويلشي نول بوحالي انتو قورت رتي بوسيحضي
هردا قبط أود الله تبارك وتعالى وحكلو الدليل أطهي قرآنك وحكست أو تاريخ دعي أو نوشيغي يسيد حقائق أي أطهي كترجميسا ما أنت واحد الآن يوحي دعي أي القرآن كترجمية مركا لو يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين النبي صلى الله عليه وسلم مركز أبو بكر أتجي مركز وحي كبحان الباب يرقض دمو قرق أبو بكر قداشي ساعة مركز وحي حلالين آذين قد كي لديه تري غارو ثور أي آذين انت انفجركو صوت على ننكهر وحير دي قد كقارين قدكم يقيبوا جرامة قانان على بعد نحو 5 أميال في اتجاه اليمن لنا اليمن ومقالة كحيقة مكو وحونا مركا أجرى ميش النبي صلى الله عليه وسلم إيا كعبدا إيا كب حيان أبو بكر حدن كمقالة 5 مايل بو أجرى 5 مايل بو أجرى مركا ميقا ساعة بين لغينيين واتقانا انت مايل 1 مايل للغايو وقران كرتا waxaa dhici kartaa marka la yiraahdo 5 mayl inuu ay ku qaadanayso muddo dheer ay ku qaadanayso ilaa iyo fajarku markuu soo dhalan rabay bay tageen nabiga Abu Bakar radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bay galeen waxaan la yaabay godku horta ma aragtay qaaru thawr wali ma aragtay qaaru thawr waa buur dheer oo hadda maka ku dhex taalo magaalada hadda geesahay ka martay oo dheer oo shub halka aad weey dad baa waxay isku dayaan inay fuulaan oo ay bal arkaan meeshii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar ay galeen inaad fuushid oo aad meesha gaadhid dhibaato aad u weyn baa ku maraysa aniga ma fuulin ayada laakiin waxaan fuulay qaaru xiraa baan fuulay sababta qaaru xiraa jaranjar loo sameeyay bay leedahay tan jaranjar xataa ma leh لكن تن هذا ترنجر بالوسمي مركان ترنجر تقري غارو حراء عن قلي حقيقة أهان وحن ملايين يا لباتن يشن دقيقة بان ترنجر هالك آدي سكسعني ضد كي يعني سلسعني إحنا لقيوا ذا تجي نقول بالجلبيه وكسعون واي أيضا ترنجر لفولة يوي وأنت أفرت دقيقة عمل أما واحد لم يدا آسي صعي أكو قاضنيس كان waa kasi daraya waa buur kasi daran oo halka taagan nabigu sallallahu alayhi wasallam ya Abu Bakar godkii bay galeen radiyallahu anhu wa ardaa nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu godka galay ya Abu Bakar iyo nabigu ay godka gaareen Abu Bakar baa wuxuu rasuulka Ilaahay sug aan ka hormare la'alla hadii godka wax ku jiro aniga ha idaba inta adiga ku dhibi lahaa aduu حتى النبي أمتها رسولك أمتها صحابته وحيد يجرين فداك أبي وأمي أباه يهو يده هاللقو فرطه رسولك الله أنا عن كاهر مرة هداي وحدا عيان أنا هيقول عين أبو بكر مركب قدكي وقلي رضي الله عنه مركاسو باري قدكي مركاسو حكو أركي قدود يرير أو دلدلال أو قد بهالات أو كيال maradiisi intuu dacala ka jeexjeexay buu ku gufeeyay oo ku awday Abu Bakar radiyallahu anhu waxa la yiri waxa soo hartay laba god ama laba soo hartay markaasuu labadiisi lugood buu afka ka saaray oo ku awday radiyallahu anhu wa ardaa nabiguna sallallahu alayhi wasallam marka uu soo galay godku waa ciriiri ayuu intuu nabigu دبت أبو بكر لويهيسا موسى أبو سحر وقل عريريا أو لما قف حتى أن قادين أبو بكر وافق ليا نبي صلى الله عليه وسلم لويس أبو دول سحر أبو بكر قد كي بهل باكا قنيني رضي الله عنه وأرضاه مركو بهل كو قنيني المديسي أيا النبي قد دارتي صلى الله عليه وسلم وحو كبا قيبا ليري هدي أو نقنقاقو أو أويو أما قيليو أما نقاقو نبي صلى الله عليه وسلم إنه هردada ka kaco hurdada nabigu seexanayo sallallahu alayhi wasallam ayaa kala qiimo badan xanuunka iyo dhibka asaga haya radiyallahu anhu wa ardaa markay ilmadii ku daadatay buu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam maxaa kugu dhacay Abu Bakar gaasuu rasuulka Ilaahay waa la qaniinay
fidaaka abi wa ummi hooyadii aabbahay ha lagugu furtee markaasuu nebigu ku tufay meeshii sala allahu alay wasalam markaasaa xanuunkii baa ka tegey radia allahu canhu wa ardaah 3 beri bay godkaa ku jireen saas ah abubakar iyo nebigu sala allahu alay wasalam waxaa qur'aanka markuu soo degayo oo uu godkaas sifaynayo nebiga sala allahu alay wasalam oo inaga uu nala hadlayo qur'aanku inagu nala hadlayaa wuxuu leeyahay ilaa tansuruuhu haddaad nebiga u gargaari weydaan iyo diintiisa faqad nasarahu allah allah horay ugu gargaaray id humaa fi lgaar markii ay godka ku jireen asagii saaxiibkii id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macanaa markuu saaxiibkii ku lahaa hamrugoonin allaa nala jire hamrugoonin allaa nala jire 3 beri bay godkaa ku jireen gaajada iyo kulaylka ma ka wada aragteen god ku dhex jir 3 beri innaga waxaan ka fakaraynaa waa awey qubayskii oo musqushii oo hawlihii dhibka iyo culayska meeshaa ka jira bal aduu sawiro waa nebi maxamed sala allahu alay wasalam waa afdalu man mashaa calaa dahriha waa qofkii dhulka adduunka ku istaagay adduunka qofkii ugu fadliga badnaa weeye hadday adduunya qiimo leedahay asagaa la siin lahaa hadday adduunya qiimo leedahay asagaa la siin lahaa laakiin ciriirigaasuu kaga jiraa nebigu sala allahu alay wasalam 3 beri marka ay ku jireen waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ahaa 3daa beri waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ahaa cabdullaahi ibna abi wiilka la yahay cabdullaahi ibna abi bakar cabdullaahi ibna abi bakar waa wiil yaroo abubakar dhalay ayaa oo dhalinyaro ah waa wiil yaroo caqli badan ayaa nebiga iyo abubakar u imaan jiray hameenkii sala allahu alay wasalam markaasuu u sheekayn jiray markaasuu wuxuu uga sheekayn jiray maka waxyaabaha ka dhacaya iyo shirqoolka qureysheed intaan salaadu dhalanina uu ka tegi jiray quraysh buu la waabariisan jiray asagoo iska dhigaya qof xalay iyaga la seexday oo wiilkan yarku mayuusa seexanin oo nasanin wiilkan hameenkiina nebiga iyo abubakar la jooga u sheekeeya maalintiina maka dhagaeya oo dadka warkooda dhagaysta iyo ciidanka iyo dalabaadka iyo barnaamijta quraysh ay wado ma seexanayo waa qof ilaahay iyo rasuulkiisa u shaqaynaya sala allahu calayh wasalam raaxadiisa waxaa kala qiimo badan diinta ilaah baa kala qiimo badan allahu akbar caamir ibnu fuhayra wiilka la yidhaahdo caamir ibnu fuhayra ninka la yidhaahdo haddaad hore u xasuusataan waa ninkii addoonka ahaa ee abubakar xoreeyey ee ilaahay dartii ugu xoreeyey ari abubakar lahaa ayuu raacaa oo wuxuu ku raacaa buuraha hameenka markay saacad camal tagto oo mugdi fiican ay noqoto ayuu ariga soo dheelmaa markaasuu abubakar iyo nebiga agtooda fariisiyaa sala allahu calay wasalam markaasuu wuxuu uga lisaa caano markii subaxii uu soo dhow yahay ee cabdullaahi ibnu abibakar uu tago ee uu magaalada aado buu ariga ku soo heesaa oo raadka cabdullaahi buu soo raaciyaa si uu raadka cabdullaahi u tirtiro subxaan allah waa meesha waxaa ka socda asmaa bintu abibakar iyaduna waxay diyaarinaysaa quudkii iyo sahaydii nebiga iyo abubakar ay qaadan lahaayeen oo ay waddada ku mari lahaayeen bay diyaarinaysaa maxaa dhacday marka quraysh bal ka warrama xaaladooda iyada quraysh markii ay wareereen subaxii marka la gaaray wiilasha way sugeen maxamed maba soo baxayaba nebi maxamed maba soo baxayaba sala allahu alay wasalam way sugeen markay waa bariisteen ayay istaageen markaasay fiiriyeen waxay arkeen cali ibna abi taalib oo gurigii nebiga ku dhex jira sala allahu alay wasalam waxay leeyihiin ahlu siyarka markii ay muddo hurdeen ayaa qof baa u yimid oo wuxuu ku yimi maxaad sugaysaan saydeen maxamed baan sugaynaa oo maxamed sooki intuu idin dul maray oo madaxa ciidda idinkaga shubay idin dhaafay ma aha ciiddii bay saa dheheen saa mid walba madaxa carra uga buuxdaa yaa indha tiray yaa qabtay yaa nebi maxamed caawiyey allah tabaaraka wa tacaala
ما أنت سؤال لما جو ها سو كم عاون كر ها سو إنك نما عاون كر ها شقدي نبي محمد يا أبو بكر هيا إنك هينا dadka maanta laga rabo shaqadaas inay qabtaan waa inaga dadka u baahan kaalmaha allana waa inaga alla nooma baahna inaga u baahan tabaaraka wa tacaala inaga u baahan markay wareereen ayay cali qaadeen way xirxireen awey maxamed wuxuu ma aqaano ma ka warqaba meel u jiro way qaadeen kacbaday geeyeen way xireen saacad markii uu xiraa oo ay interview gareeyeen oo waxba ay ka waayeen biska sidaayeen wiil yar buu ahaa wayna garaaceen tay garaaceen oo su'aalo weydiiyeen oo ay dhibeen oo dhulka ku jiideen marka ay ka samreen biska sidaayeen markaasay waxay aadeen gurigii abubakar radiyallahu anhu abubakar ma jooga baa la yiri asmaa bint abubakar ma ka furtay waxay dhahan away aabaha markaasay tii laa adri ma garanayo abu jahl la'anahu allah baa gabadhii dharbaaxada xoogga uu ku dhuftay baa la yiri dhagtii birtii dhagihii dhagta ugu jirtay baa faniintay baa la yiri oo dhacday markaas iyadoo dhulka ku dhacday gabadhii dharbaaxada ku dhuftay darteed bay dhulka ku dhacday su'aanaad la leedahay aabahay ma joogo away xagee buu aaday saytir ma garanayo laa cilma lii bihi waxdan aanu ma garanayo markaasay waxay ciidan bay direen waxay dhaheen qofkii keena محمد صلى الله عليه وسلم أما أبو بكر رضي الله عنه لبضوضة مذول بقول حالات باندول دقني أو جيلة أيقو نول هدات كينتين يا أيقو لدلي مضحوض هدات كينتين مضحوضة وحيدول دقان لبا بقول أو جيل أبا يدول دقان لبا بقول أو جيل أبا لا راي هدات نلول أما نمشو أتكو كينتين محمد يا أبو بكر ونيو وان سويديني نايا ضد كان محاد إبايا waxaa dhibaysa kelimada tawxiidka iyo diinta dhibaysa maanta way buuxaan dad kelimada tawxiid iyo diintu dhibayso marka artaan dad karkaraya oo iswaalaya oo caytamaya oo afka abur ka sii daynaya war maxaa dhibaa qofkan haysta diinta Allah dhibaysa wax kale ma xaqiiqatan wax kale ma diinta Allah baa dhibaysa Abu Jahl waxa dhibaya waa maxay waa diinta Allah أبو بكر أبيه أو طقة أو إندالله أبو قحافة أو تكوبا يبا قرقي يمد سو قبليه بكوئي وحوير أبو بكر وحولا ما إذن كتغي حولنا إذن كمتغي مياه أسماء رضي الله عنها حالات قفك مسلم كافيري يددالك قوان أفيري انتي قندي كيش أي كبو حساب نجحان وأي أوكي انتبه تري أووي حولا آهات أبدا بنوغة تغي وانا كوانا قندي بو قاضي قلح با كيريس دغحان با كبخ اسو لعق بو مليا شilmaana si walla marka idan ma dayicina xoolo badan buu idin ka tagay waxa la shilin ugama tagin waa waqtiyada la yiraahdo Abu Bakar maalkiisa oo dhan Ilaahay dartii buu u bixiyay wuxuu maalkii intuu haystay u qaaday inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam jidka ku mariyo iyo marka Madiina la tago dadka hijroonaya inuu ku dibu dajin ugu sameeyo oo lagu dago buu maalkiisi oo dhan u bixiyay Ilaahay dartii oo Abu Bakar yaa la tartamay kara radiyallahu anhu soo kiima intuu maalin Umar la tartamay Umar baa yiri wax kasta asaga iiga horeeya maanta waxaan ballan ku qaaday inaan ka hormaro wuxuu Umar nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam sadaqaha la bixiyo markaasay waxay ku soo aaday aniga oo maanta xoogaa fiican haya saansibi maanta Abu Bakar ka hormartay maalkiibu intuu qaybiyay buu haaf soo qaaday nabigu u keenay sallallahu alayhi wasallam markaasuu yiri rasuulka Ilaahay waa sadaqo nabigu markuu arkay yiri Umarow maxaa arurti uga soo tagtay soo taraktu lahum nisfa hada intaan haafkeed baan uga soo tagay Abu Bakar baa wuxuu keenay sadaqo lacag nabigu wuxuu yiri Abu Bakar oo ciyaalkaaga yaad uga soo tagtay soo taraktu lahum Allah wa rasuulahu Ilaahay iyo rasuulkiisa uga soo tagay أو عمر وحيري والله بأنا ولقي كل ترتمين ما أنت كاهري هذا ما أنت كاهر مرواي ولقي خير كاغا مهر مري أبو بكر رضي الله عنه يا ما أنت نين إرجي وكبري وكبشحي وصريت سكجيفة وكلها هي مسلم معنا لا أفكر كتاغي وحكي شيء يا صحابة النبي رضوان عليهم ساسها
وفيرسو وحياب لوي مركي قريش أي ياعين ميل كستا أي آذين أي وريرين أي وحي سي أرديين بي قد كي نبيقو كجري بي سودو استاغين صلى الله عليه وسلم مرهم با قد كإني عارو أي كسا ميسي قري هذا قول لينا أي إلما كل شيء نعم وصح إيروسير كوي شيغان إنه يقول لي كو إلما شيء لكن قول لي دي هالكا كو إلما شيء ومدة كعبة جوجتا هذا الكلام هي ترى بدن كسفر عن هلا إلى علي النبي عاوسية أركا دليل لو ما هي لكن إنه يقول لي كو إلما شيء عارنا أي هو سي قد كي أي كدكتي قرقي دي كردستي أركاسي إيروسير كوي سوغان أركاسي وي سوغان تاي معنا وأرين جرتوي markay soo dul istaageen ayuu Abu Bakar fiiriyay soo wuxuu arkay nin labadiisa lugood dushooda taagan tahay markaasuu yiri rasuulka Ilaahayow hadduu hoos indhaha u dhigo wuna arkaya intaasaa naga xigta law taqta ra'sahu haddii uu madaxa hoos u dhigo wa nadara ilaa qadamayhi lugihiisa dhexdooda uu fiiriyo la ra'aanaa wuna arkayaa buu انت كليب نبي محيري ابو بكر او كربيسن او مروغيسن او بقيا نبي او بقيا صلى الله عليه وسلم اي رسولك اركي صلى الله عليه وسلم سيري يا ابا بكر ابو بكر ما ظنك باثنين ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا ابو بكر ما حد لينيسا لبو الله سدح كويه أبو بكر محمد مليس اللبو الله سدح كويهاي همرجون الله نلجري همرجون الله نلجري أبو بكر مركو الله كشي كيني أيو الله وحيري إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فيري ثاني اثنين هذا النبي أقر قاري ويدان الله أقرقاري مركي كوي قالوا بحيين أصدقوا الله بمتك الله بيأ وأصدقوا أبو بكر كلية ثاني اثنين إذ هما في الغار مركي أي قدك كجران حصوصه إذ يقول لصاحبه مركو صاحبك كلها لا تحزن إن الله معنا همرقون ألا نلجري حصوصه همرقون ألا نلجري لا تحزن إن الله معنا ألا نلجري همرقون أخي الكريم أخت الكريمة ولا الله محسوسا كرتا أذيك يا عرورت هذا مركي آتيهين وقريقا أتكون حجرتان مكان عين كرتا محسوسا يسا لا تحزن إن الله معنا ألا نلجر معيدا ألا يلجرك ألا أو كلجره ما دريميسا ما درينتها شعور كاس ما درينتين إلهي أوليه تبارك وتعالى مركو قفك مسلم كهليو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في ساجدين إنه هو السميع العليم وأمدك كأرك يا مركا تستاجيسو يا مركا تقدوميسو مرة أفريسانيسو مرة أتكعيسو مرة أسجوديسو مرة أركوعيسو الذي يراك حين تقوم وأمدك كأرك يا الله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا ألا نلجري همرغونين معيداس الله ووحا قفك مؤمن كاسية باورك كالسوني ده عقيدة ده وناكسن ديرشده حق او سكبقن حق او شيغو دينتا او جعلاado marka aad dareentidino alla micigaga yahay tabaaraka wa taala waana waxa qofka muuminka ah macsiyada ka hor istaaga weeye ee u diida weeye imaam ahmed ibn hanbal rahimahullahu taala ayaa maaninba u yimid gabayaa nin gabiya xogaa gabay turturta markaasuu wuxuu ku yiri war xogaagii aad turturi jirtay maana maqashiisin maanta markaasuu yiri waan ku maqashiinaya إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب وحير مركا أدمالين كليغا نقطين هديهن كليغا يبانهاي لكن وحاد هذا الله الرقيب أو إوارديين يبا إلى الجرى أو إفيرسان يد ها أمالين وحي تغي إنو الله إلوبيو وحكستو أو السميسينا ولا ميال بيكو قرانته
ولا تحسب أن الله يغفل ساعة هأملينا الله ساعة إنه كهالمان سيه ولا أن ما تخفي عنه يغيب هأملينا وحا الله كقرين يسال إنه كقر سومي وحيد رجل لجوجي أحمد بن حنبل هذا الزاهد العابد الورع شيخاس عالم كأها حلال ميرشد بدنا عبادة بدنا انتو استاغي أو قل اسكو حري أيو إلا همينك أويي مركاسو حيدا مركي أن نكتسار لاركو حي مغلق سوء أويو رهي إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب مركاد كليغا نقطين هدين كليغا يبانهاي لكن وحاد هذا الله الرقيب أيا إلى جوغا لا تحزن إن الله معنا ألا نلجره تبارك وتعالى مركاسو نبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر سدح بريبي جوغين هويدين قاتشده أونكا كوليلكا عبسيدة مروجدة هويدين ودن ننبع هادينية ودن ننبع هادينية مجتمعي وننبع إياه كسهر جيدا مجتمعي وننبع رب النبي صلى الله عليه وسلم إنو ديلو لعق بقى الله طول دقي بقى لهور هادينية انتاس أردن قد كاسو كججرة وانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدي الدنيا قيمة لا دهي سقى الله سين لها سقى الله سين لها لكن ماشي أصعد وامحي جنة الدون كان وحود نبي محمد آفسيس تجنة أبو بكر الدون كان وحود آفسيس تجنة مركو الله كشا كينيو والله يدعو إلى دار سلام إلهي وحود نوير يا دار النبي تقليد وجنة الدون كان وأدون ضعيف واللي توي أدون ضعيف واللي توي هكو كتسومي هكو كتسومي هكو سرمن هكو خلدمن ولا إن كستو استهد ما أنت إسوكا قادي ما أنت إسوكا سارنتهاي ما أنت أياد وح أنت تربتي هذا الشيء أنت كاكلا دادتو أو لغو قبتو أو ألا لغو جيو أياد أوي دونتا أو كلمة كستو أو تري إيه فعل كستو أو سميسي إيه شيلين كستو أو كسوغالي إيه ميل كستو العقل دكتي إيه جلاس كستو بيو عبتي إيه صحن كستو راشينه عنتي أيا لوغو حسابين دونا محاد عنتي محاد كفائديسي محاد دنه كلهاyd niyadaadu maxay ahayd maxay ahayd dantaad ka lahayd maxaad u hadashay maxaad dadka u cayday maxaad dadka u maagtay maxaad u dishay maxaad u dhacday maxaad u xamatay maxaad u xaqirtay أوي دينتي أوي شريعتي أوي وحي لغو ديري محاد سميسي محاد أمالينيسا قف محكمة اللي هور استاغية أو مركاد اللي هور تاغنت هينا دادك هور استاغية اللين كأد كل جيرتين ماشا أد ودا تاغنتيهين ورسولك يا أبو بكر وي دادك الله متكاوي ما انت هسا كسوغيس ما انت نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا درتين وقدك وقليبا كسوغيس أبو بكر وقدك وقليبا كسوغيسا دين تاس أي قدك وقلين با مانتنا كسوغيسا برينا والقوي دين دونا محاد كقبطي بالوله دونا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر بل أنفيرينو الطريق إلى المدينة مركي قدك كبحين المدينة آدين أنفيرينو مالين اسنين بيش الربيع الأول باللوغة دي مالين اسنين وبشهر ربيع الأول باللوغة دي بينما محمد صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر بيقولك كبحين وهجرة ما نمتي كوباد وي تاريخ الهجرية لما أنت أنترينينو ما نمتي دي أي كبل لعبتي وي أيا عبد الله بن أريق سيدي اللي يسكوغا الليتي ما الله بدي حالات نبي أوكاني صلى الله عليه وسلم من بركي مركو أوكاني أيو رسولك صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر لبدي حالات مركا الله كاني بيا رسولك إلا لبدان حالات إنو دياري لبدان قيلة مدى أثربتين قهضو مركاسو النبي قوحي بثمن وكائب سنية بالله محمد صلى الله عليه وسلم لو صنانتي سفيري يا عفافك وذا إنو له أبو بكر صحابي جيباتها وإلا صعوتها وان كل الله هو حاجة نعم وحي النبي صلى الله عليه وسلم كائب سنية وكي النبي الله صلى الله عليه وسلم مركي دمو كشيكيني قفك إيقو قلد بدن بني آدم كمال كيسة يا صاحبتي نمدي سواء أبو بكر
رضي الله عنه هشيب النبي وقاتل صلى الله عليه وسلم ويررتين أبو بكر عامر ابن فهيرة نور راعي عامر ابن فهيرة أريجي أدونك أريجي راعي وي أيجي بالله جرودي وبالأفيرسو النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر عامر ابن فهيرة أيا صار راعي ننكي عبد الله بن أريقد جيل وذي قال كأهان وورا أفر تودوي أسماء بنت أبي بكر بقى وحي أكنتي سهيدي النبي جاء أديارسي ما أكنتي مركي أكنتي أو أي هالشي صارتي أو الدمعة إني أررته أيه وحي ويدي وحي كحر حري لهيد بي ويدي حري جيبي سوء اللودي دقدقي انتي مرتي دي فرتي مرضي لحظة أقوحر ريد أي فرتي أو اللبا أكلا جيحدي باي منا كحرتي لحظة منا أي أقوحر حتي تشوقي أي النبي صلى الله عليه وسلم سهيد أقو كانت مركزا وحلو بحيي أسماء ذات النطاقين لبدي مر مد لهيد ومدي لبدا مر لهيد أما لبدا دلع واحد إحدى لو حرت أما لبدا الصوم واحد هيد عبد الله بن الزبير ويلك أسماء يعني من كعيان وحيدهن ورصا عنقي ذات النطاقين متهد مركاسيتي ورهويو ما وحي ما أنت كوعيبيان ذات النطاقين إنا كل شيء لبا مرلي أما لبا قوقرلي أما لبا دلع لي واحد هيد مية كلهن مركاسوية ها سيتمين أوجين لبدا مر ماشي أي كتمت waxay tiri waxay ka timid markii nabiga sallallahu alayhi wasallam aan u xirxiray sahaydi ee waxaan ku xiray aan waayay ee maradayda intaan kala jeexay aan qaar ugu xiray qaar anigu aan dhaxda ku xirtay baa iyo ka timid bay tiri markaasay sharaf noqotay sharaf markuu wiilkii ogaado u sheegay nimankii wareede ma waxaad ugu ceebayseen inay dhashay laba marley ma taqaanaan labada maro meesha ay ka timid ma taqaanaan markaasuu u sheegay Allahu akbar أبو بكر يا النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي يا أبو بكر يا لبدي لسعتي ننكي باوضا همينك مقدي سيبي بحن لنا عيمان بي آذين مركا أي السعودين أو أي حالة يري أدوادين لنا بدا لنا هذا بحر الأحمر ريد سيد لنا عذي آذين مركا لنا فقادين يونينكي هادرين توري تيبو دينا بدح لا آذي مدو وذي مركو حيبتا ودوا يوحو مري وضا دينا حيبتا مرتا وددكو أين مرين أو عدلا أبو مري وانو وددا كالي يقانا تو مركو هورا أم دينا آدي أو أنبي أو وهدنا أقوي بو دينا عكالا كوري تي مال عدلا أبو مري ومال أن ددكو فيلي نمبا أيو مري همين كي أو لنبا يسعودين markii maalinta nuskeedii la gaaray 6 saac oo maalinba 12kii duhurka marka la gaaray buu nabigu damcay sallallahu alayhi wasallam inuu dhagax hoostiisa uu seexdo oo xoogaa uu ku nasto xalay oo dhan bay socdeen maanta oo dhan bay socdeen waa duhurkii bay socdeen markay damcaan inay damcaan inay nastaan ayo oo bakr wuxuu suk rasuulka ilaahay يان قد حكمودين يان جيت يان لقا قنين دغخا هوستيسا دغخيبو انتو حاقي او ماشي حاقي او دياريي او سفي عن او هبيي او عيدي iyo wixii simay biyo suukiina seexo markuu nabigu seexday sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar ma seexanin radiyallahu anhu wuu baxay bal inuu nabiga waardiyay sallallahu alayhi wasallam dhinacaasu aada wuu wareega دينا كلو آذا ووريغا دينا كلو آذا ووريغا دينا كلو آذا ووريغا وواردي إلهي درتي بأسو جيدا إلهي درتي بأسو جيدا نبي قايل صلى الله عليه وسلم لبا إل ناري ما تابط لبا إنوت لبا إل حرام بي ناري كتاهي ناري ما تابطو إل سو جيدي أيضو دينت إلهي وارديينيس سو جيدي إيه إل وإلميسي إلهي عبسيديسا لبدا إندود ناري ما تابطو
حرام بكتا إلهي درتي أو إلميسي وانت عبسي الله حصلت إلما كدادتي إيه إل سوجيدي أيضا أواردييني سدين تألا لبداسي النار ما تابتو وأبو بكر حليب سوجيدي ما أنتو سوجيدا نبي وصح صلى الله عليه وسلم واردي إنو قبتبو وريقيا رضي الله عنه وأرضاه وكاسوه حو أركي نين راعية وأري راعية أري لجوغا سويري أريغا عانا نوغلس عانيه بقلسي وأنك أتقرنيسان وحو يري ويل ما هيستو عانها كلسو أو بكر بابورتي وحو كرهادي نجح دوليلة أو حردن أو ويل عمله قدام بساق علي ونذيفيه مركو نذيفيه أيو ريدا عن ذيبو نذيفيه دورتي يوسخ ذيبو كجفي يوحي وسخه كيالي مركاسوية هذا اللس واللسي نبي أجي صلى الله عليه وسلم أو ورابي أصلا وعبي أو بكر رضي الله عنه مركي وحيري نبي وعبي إلى أن حال النقضي فيري إلى أن قنعي محقا عنيا نبي وح أبي صلى الله عليه وسلم ما أنت إنه ما قنعنا ما كان أرغم السنة دي النبي أو حوق له سنة دي النبي أو قيمة له دينتي الله أو كرجرته ما كان أرغنا إنتان قنعنا أو فرحنا أو إيش إنه قبوضه ما كربت بدلنا وحي وان فرحي وان رالي النقضي مركو النبي عبي صلى الله عليه وسلم مركا سيقورين ويخرتين قلب كيو دنبي سعودين أو بكر مسيحانين رضي الله عنه همين كيو دنبي سعودين مسيحانين مالنتي اللبات أيي وحي صومرين ما ملا دي تري معبد أو خين تندو ميل أجمودي وحالي اللبات تندو بخيمتي معبد تندي ميل كدستي وميل باديو يدقنيد ماشاس ميل مشلل اللي يراهدو لنا قديد أما قديد ميل اللي يراهدو وميل مقالة مركا الله فيري مكا أجرتا بقول يصدم كيلومتر أجرتا ويوريقيان أقول تصدق سعالها انتا ويكاد إرين ويوريقيان حالي هاف كيد بي سعودين همين هور هاف كيد بي سعودين شالي أوردن بي سعودين حالي أوردن بي سعودين ومالين تيكالي يوحي أوي ماذين معمل يا معبد تانتا ذي يوحي ماذين بقول يصدم كيلومتر بي أجرتا مقالة مكو مركي أوي ماذين يوحي دهن وح ما هي سالة عنه مكاسي تري مايا ويكعود دارت فاعتذرت عن القراء حيث مرتقل المأود وحما هيستو أوي أريقي بالليل سيترين أوي ننكاقي وحيث أريقي براعي ميل فب أو داق آن لهين أبار باجرتا بو داق أريقي كلا خاتدي ميل فب إني صوت داقضو وحو أركي نبي صلى الله عليه وسلم خيد دقة وحالي واري عن دلين حتى ما يدلين أو قري إني عيسى فرددا كسو نبي صلى الله عليه وسلم أو خيداني محي أهيد مركاسي تري خلفها الجهد نبكى باكر حنون يدباتو أيا كربت أريجي وأريجا دون كله دون أري دون أما مغش دباتيسن ولم تكن فيها قدرة من لبن وح أنا أمله نبي وحي صلى الله عليه وسلم ما إيد ميسا إنا للصو ما إيد ميسا إنا للصو مقاسي انتي قصة شيء وحي تري أو رجرهن أو آن دلين أو آن عانا لهين أو دباتة أيضا هايستا أريجي جاري ويدي ما حد كلسي مقاسي نبي أضو إذن مقاسي تهدين مال كم مال عانو النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي متابتي خذي مقاسي عانا قلتي الله أكبر عانيه بو ياري ويل وين أو رقو إسلا قادان أو مرتين أو تلقالي مقاسو كبوحي وحالي ويل قرقا يالا مجرو إلا عانو كبوحي النبي صلى الله عليه وسلم محمدي بو يلعب ويعبت صاحبدي بو يلعب ويعبين نبي عبي صلى الله عليه وسلم ويكدر جين marka ay dhargeen nabiga sallallahu alayhi wasallam fiiri maamadii duqda ahayd ee guriga deganayd buu ku bilaabay nabigu naxariis badana sallallahu alayhi wasallam
bal maamadan fiiri wax ma hayso meel cilaahi deganta ayadiibu ku bilaabay ayadiibu waraabiyey caanihii siiyey saaxiibadiibu waraabiyey asagiina wuu cabay markaasuu mar labaad lisay oo weelkii buuxiyey markaasuu wuxuu ku yidhi hayso oo meel dhigo wayna dhaqaaqeen markii ay ka tageen oo ay baxeen ayaa ninkeedii baa yimid oo arigii ka soo laabtay markaasuu wuxuu arkay gurigii oo caana ka buuxaan sheekadii bay u sheekaysay nabigeena way sifaysay sallallahu alayhi wasallam madaxa timaha ilaa ciribta nabiga sallallahu alayhi wasallam lugihiisa way tilmaantay waa gabadha loo daliishado xadiista ugu muhiimsan ee loo daliishado tilmaanta nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhaasaa nabiga sifaysay berri baan ka sheekayn doonaa tilmaamahii nabiga ku sifaysay baan faahfaahin doonaa insha allahu tacaala say nabiga u tilmaantay madax ilaa tin ilaa cirib bay sifaysay markay dhammaysay ninkeedii wuxuu yidhi haadaa wallahi saaxibu quraysh walle ninkani waa ninkii qurayshi sheegtay ninkii qurayshi raadinaysay weeye ninkan laqad hamamtu an asxabahu waxaan doonay oon damcay inaan la saaxiibo wala afcalanna in wajadtu ilaa dalika sabiila haddaan arrinkaa awoodana waan samayn doonaa buy waan samayn doonaa ikhwaanii waxaan isweydiinaynaa yaa caanaha rida ka dhaliyey allah tabaaraka wa tacaala lafa burburay buu kabaa neef aan caana lahayn buu caana ka keenaa qof mariid ahoo laga samray buu daaweeyaa allah awoodiisa tabaaraka wa tacaala wallaahi haddaad ku tiirsan tahay oo asaga aad isku hadlayso dhinacaagu ma dayacmo allah tabaaraka wa tacaala risqiga asagaa barakeeya innaga waxaana dilay waa lacag raadin iyo risqi raadin laakiin ridan caanaha aan lahayn allihii caanaha ka keenay miyuusan awoodin inuu ku quudiyo war waxa aad cunaysa xalaal ka raadi oo xaaraanta iska ilaali allah ku deeqtoomaya oo ku deeqaya oo kugu filan tabaaraka wa tacaala hunguri weynanka iska daa xaaraan raadinta iska daa waxbasi raadiska iska daa halaca degdega iimaan li'ida iska daa isku halle allah tabaaraka wa tacaala asagaana abuuray wuxuu naga abuuray wax aan jirin asagaa raximka hooyada nagu waardiyeynayey asagaa bannaanka markaa nimidna na quudiyey asagaana barbaariyey asagaa caafimaadna siiyey meeqee maanta jiran oo jiifta oo aan awood lahayn meeqeed aragtay qof gacmo go'an oo markaad istiraahday salaan labadii gacmood aan fidin karin nin culimada ka mid ah wuxuu ka sheekeynayey wuxuu yidhi xaflad baa la iiga wacay aroos ah marka aan soo fadhiistay buu yidhi yaa waxaan arkay buu yidhi dadkii baan salaamay buu yidhi asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah nin baan damcay bi inaan salaamo markaasuu gacanba iisoo taagi waayey markaasaan iska dhaafay waan fadhiistay mase labada gacmood baa halkaa ka go'an meeshuu fadhiyaa buu yidhi timir baana loo keenay buu yidhi iyo qaxwo markii lasoo agmariyo buusaa u fiiriyaa buu yidhi waxaa niyadiisa ku jirta buu yidhi allah haddaan awoodi lahaa timirtaa inaan xabad intaan ka qaato aan afka gashado aan cuno haddaan awoodi lahaa markaasaan waxaan is iri buu yidhi war weligaa ma ka fakertay nicmada gacmahan ilaahay ku siiyey ma ka fakertay waxaan is iri buu yidhi oo ninkani hadda musqul xasee buu u aadayaa waa inuu sugo ilaa qof raaco oo musqusha uu la galo oo saxarada uu ka dhaqo uu sugo weeye miyaad adigu ka fakari weyday allaha inta nicmo maanta aad haysata ku siiyey awooddaana leh inaad u tahay addoon asaga caabuda oo asaga uu abuurtay asaguna uu yahay maaligaaga iska kaale allah tabaaraka wa tacaala waa cajiib weeye maalintii saddexaad marka la gaaray ee ay ka tageen umu macbad ayaa ahlu maka waxay maqleen mucjisadan fiiri dadka maka degan baa waxay maqleen cod magaalada maka intuu ka soo bilaabay dhinaca hoose oo uu magaalada dhex maray ayuu dhinaca sare ka baxay codkii bay daba yaaceen qof ma arkaan cod baa ordaya qaylaa ordaysa qaylada
نبا قبل يو حليه جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسودد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد وليه وحليه جزى الله رب الناس ألا هأبال مريو رب عليه ضدك أبوري هأبال مريو خير جزائي أبال مرين توفي عن هسيو رفيقين لبا صاحب وحلا دقي خيمتي أم معبد لبدي تندو أم معبد دقي لبدي تندو أم معبد ماشي أي تندوينك مامداasi ka dhisatay maamo waxay daal wadada degan oo dadku yaqaanaan oo safarleedu maraan oo ku hoydaan way haydaa leeydi labadii saaxiib ee degay ilaahay ha ka abaalmariyo abaalmarinta ugu qiimaha badan huma nazala bil birri wartahala bihi baarinimo bay la degeen oo hadana ay la caraabeen galabkii ayuu yiri وأفلح من أمسى رفيق محمد وحالي باني ما أنت متك النقضي صاحب كني محمد متك النبي محمد الله صعدا أيا اللي باني وأبو بكر رضي الله عنه كاسا اللي باني وهي فيا لقصي ما زوى الله عنكم قصي يو قصي صو قريش معها سو النبي قيس كيس ما صلى الله عليه وسلم ولا وحبا إذن وحير محا إذن وحبا إذن كل عاي وحا إلهي إذن كالضوبي ومن فعال وحيابو وناد aan iyada oo kala la arag iyo madaxtinimo iyo khayr iyo barwaaqo maanta waxa idin dhaafay ee nebi maxamed idin kala tagay wuxuu yiri walla waa idin dhamaatay maanta waxa idin dhaafay oo wanaag hadaad ogaan lahaydeen waa ajiib wuxuu yiri liyahin bani ka'b makana fatatihim banu ka'b wa quraysh weeye ha ku dulloobeen dhalinyaradoodii meesha fadhiday ee u fadhiday inay dadka mu'miniinta ah dhufays u galaan oo laayaan oo dhibaan arrinka ha ku dulloobeen buu dhalinyaradoodii meesha fadhiday ee ciidda madaxa lagaga shubay wax codka sheegaya waa jinni mu'min awey magaalada maka dhan buu ku wareegay qof kasta maqlay waa ninkii ugu horeeyay ee magaalada maka khabarka soo gaarsiiyay nebi maxamed galbay tag madiinuuna galay waa tagay waa ku daayay hasku wareerinina shalay bay khaymat macbad teendadaadii bay shalay galab ka caraabeen buu yiri nimankaasi wuxuu kala oo qiray oo dadka ka dhaadhiciyay fadliga Abu Bakar iyo nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo wanaagooda nabigu sallallahu alayhi wasallam markii uu wadadii dhaafay habartii markuu dhaafay teendadii yani la Suraqah ibn Malik الجعشمي أو المدلجي أو أردي النبي كدبي صلى الله عليه وسلم نين كاني ونين أضيئة أو محترمة وكابة قبيلة أدلو احترامه وحوم مقلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا صاحب كيسا وحالة ضل لغاي أبا المرين هداد كينتد ماذا حوضة هداد كينتد أيقو نولي أيقو ننتي لا بقول أو جيل أبا الله هاي oday reer baadiya oo 200 oo geela loo sheegay weeye asaga dhanba hungurigi baa ka tagay waxa la yiri asaga oo odayaal la fadhiya yaa waxa u yimid qof kaas wuxuu yiri waxaan arkay niman safarley oo xeebta maraya waa badda cas reer siida xeebteeda maraya waxaan u malaynayaa inay yihiin Muhammad iyo saaxiibadii Quraysh raadinaysay waxaan ka baqay buu yiri inay raggu intay yaacaan geela ila qaybsadaan markaas waxaan iri buu yiri war orod naga tag waa hebel iyo hadda naga tagay waa raggi hadda aan sagoontinay ana sagoontiyay oo aqaan nimankaas iska aamus markii wuxuu yiri dadkii degeen yaan yu adoon xaaskiisii gabadhiisii intuu u sheego wuxuu yiri faraska ii diyaari faraskii guriga gadaashiisa ugu diyaarsay xaaskiisii faraskii buu qaatay kaasuu nabiga iska daba daayay
asagoo geelayaan lagula qaybsan asagoo kacaya nabiga sallallahu alayhi wasallam seef ma wato Abu Bakar seef ma wato dagaal kuma jiraan ninkan waa anu hubaysan oo ordaya lalaya buu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka dabayay waxaan arkay buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam oo quraan akhrinaya oo hasha iska saaran ya Abu Bakar oo yukthiru al-iltifata oo milicsigiisu badan yahay geesaha saasuu leeyahay Abu Bakar geeskan fiiri geeskan fiiri geeskan fiiri buu leeyahay waa markuu yiri Abu Bakar nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu la socday nabigu ka hormaraa markuu xogaa hor socdo buu dib maraa suu gadaal buu ka maraa suu xogaa markuu gadaal ka jiro dhinaca ka maraa suu xogaa markuu dhinaca ka jiro dhinaca kale ka maraa nabiga wuxuu yiri Abu Bakar maxaa kugu dhacay maxaa la gagadoomaysaa suu rasuulka ilaahayow waxaan xasuustaa buu yiri dadka jidgooyada noo galaya markaasaan kaa hormaraa markaasaan waxaan xasuustaa kuwa raacdada ah ee naga daba imaanaya markaasaan gadaal kaa maraa markaasaan waxaan xasuustaa kuwa dhinac gooyada midigta ka imaanaya saa midigtaan maraa saa waxaan xasuustaa kuwa bidixda ka imaanaya saa bidixtaan maraa marka mar walba waxaan isleeyahay ama dhinaca lagaga yimaadaa ama dhinaca lagaga yimaadaa ama dhinaca lagaga yimaadaa markaasuu nabigu wuxuu yiri ma jeclaan lahayd inay wax kugu dhacaan oo aniga laygu kaa bedelo wixii ugu dhacay in adiga kugu dhacaan markaasuu yiri rasuulka ilaahayow ma jeclaadeen maanta inay qodax inay ku muddo oo aniga jirkayga oo aan jirkayga la googooyo jirkayga in la googooyo maanta oo wax igu dhacaan baan waxaan ka jeclahay in qodax adiga ay ku muddo adoo nabad qaba oo caafimaad qaba oo gurigaaga jooga inay qodax ku muddo inay wax ku gaaraan mar rabo markuu Abu Bakar ninkii uu yiri Abu Bakar oo saan dhahaya marba dhac fiirinaya yaan arkay uu yiri markaasuu nabigu wuxuu ku yiri Abu Bakar rasuulka ilaahay waa nala soo gaaray waana laga daba yimid markuu waana laga daba yimid ayuu nabigu yiri Abu Bakar inna allaha la tahzan inna allaha ma'ana hawlwalin allah micigeena markay godka ku jireen muxuu yiri ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما محاض ملسا أبو بكر والله الله سدح كوياه وحيري هذنا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا همرقون ألا نلجري همرقون ألا نلجري همرقون ألا نلجري ما أنت مرقدة كويسة ضد بدن أو حقيقة وحقة حلي مروجا لسيحان واي مروجا بعد لسيحان ويدي مروجا لسيحان ويدي حلي ولول كربو بعد لسيحان ويدي لكن وحال حصوصتها لا تحزن إن الله معنا ألا نلجرئ همروجون هذا ألا كل جرو وحكست أيام معجاجا همروجون ألا نلجرئ نينكي مركو سو أرديي نبي قلنا ما فيرنا صلى الله عليه وسلم ما fiirinayo ayuu ninkii faraskii baa dhulka la galay lugihii baa u duugmay markaasaan waxaan la soo baxay buu yiri qoryihii aan ku faashan jiray faalka kasaan tuuray buu saa waxa ii soo baxday buu yiri wixii aan nacayay oo ah ha taabanin nimankan markaasaan iri been baad sheegaysaa dadka ahlu baadilka waxaa lagu yaqaanaa markii baadilkoodu ayaga raacsan yahayna way abrinayaan markuu ka hor yimaadana way inkiraan qoryihii uu watay oo ku faashaday markay ay runta u sheegeen oo shayaadiintiisa ay runta u sheegeen wuxuu yiri ma been baad sheegaysaan 200 oo geela baa la daayaa markaasuu faraskii soo qaatay wuxuu yiri faraskii buu yiri kac wuu kici waayey nabigu la hadlay wuxuu yiri warheedha maxamedow siida سوي النبي بح سو بودي وكعي مركو دمعين وكلا جيري وجيلي حسوستي سو وصو أرضي مركو النبي يقول سو دوي هاي أو إسليه قبا أو بكر يرسوك وأنا لها علي النبي يقول لا تحسن إن الله معنا بهذا نفلك كشف صدح مركي دعضي مركي صدحات بويري محمدو بلنبان الله كاغا قاضي إن أنا كتابنيني سيدا فرستي مركي دبعين يبودو يا وحاكب حي
boor ama habaas ama qiic samada galay oo ninkii dhan uu la tacajubay musiibo wey waxa meesha ka soo musiibo markaasuu go'aan gaaray uu leeyahay nimankan khalaas markaasuu nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam nabigu wuu istaagay wuxuu yiri quraysh baa waxay ku dul dhigeen 200 oo geeli baan raadsanayaa geelina waa u jeedaa shakada say noqotay maxamedow waan ku ammaan gelinayaa waxaad iga codsad maxaan kuu sameeyaa maanta aan kugu caawiyaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxba kaama rabno laakiin naqari hana sheegin oo hadda ninka maka jooga ma soo gaari karo ninka hadda maka ka maqlayay labadii shalay ka tagay khaymadii macbad ma soo gaari karo 3 bir ka hor bay ka soo tageen ma soo gaari karo laakiin dadka area-dan jooga iyo kuwii soo baxay iyo waa la wada raadinaya dhulka dhan Nabi Maxamed iyo Abu Bakar baa la raadinaya dhulka dhan waxa laga raadinayaa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar baa laga raadinaya markaasuu yiri nacam wuxuu yiri rasuulka ilaahayow ii qor waraaq uu nabigu u qoray sallallahu alayhi wasallam inuu rumeeyay ninkan uu islaamay inuu rumeeyay oo uu nabiga la kulmay Amir ibn Fahir buu u qoray markuu u qoray buu ninkii laabtay dadkii oo yaacaya ka hor yimid suu yiri warhaade dhinacan ana idinka kaafiyay meel kala aada ana soo taabtay xaqiiqadeeda waxa ma jiraan waxa la yiri maalintii gelinkii horena wuxuu ku dadaalayay inuu dilo gelinkii dambana wuxuu ku dadaalayay inuu difaaco waa iimaanku markuu qofka galo ilaahu iimaanka naga qaadin dad badan baa hadda adduunyo yar bay waxay dhaafsanayaan Nabi Maxamed inay dhibaan sallallahu alayhi wasallam oo ummadda muslimiinta dhibaan oo diintiisii dhibaan qofkii qof mu'min ah dhiba Nabi Maxamed buu dhibay qofkii qof mu'min ah dhiba alluu dhibay waxaad ogaataa qof mu'mina maalinta aad dhibto oo alla ka caraysiiso musiiba kugu dhacday inuu hadalka tuur ay waxaad rabtid qofka rabtid dulmi qofka rabtid wax ka sheeg qofka rabtid qaniin qofka rabtid dil waxba ma aha maanta dadka muslimiinta dhiigoodu waxba ma aha in la dilo caydooda iyo cirdigooda waxba ma aha mid aan weligaa ku arag oon ku maqal oo waxaa tahay aan ku garanaynin baa intuu soo fariiso cay iyo ku abtiraya oo kaa dhaaminaya kaa buuxinaya war maxaan kaa kasbaday war maxaan ku yeelay war xageed igu baratay war xageed igu aragtay meeqay reer la dumiyey oo la burburiyey oo caruur la jaa'ifeeyey oo qoysas dhisan la jaa'ifeeyey oo masaajid la jaa'ifeeyey oo culimo la caayay oo afka abu laga wada kicinayo oo dadkii waalaa iyo kuwii miyirka qabay iyo kuwii fududaa iyo kuwii diin la'aanta ahaa oo dhanba social media bah la yiraahdaa la helay nin walba halkaas afka abu ka kicinaya laakiin waxaad ogaataa diinta haddaadan u gargaaraynin oo aadan wax taraynin oo ilaahay dartii aadan u samaynaynin dhibkii aad diinta ama dadkeeda u geysato ee dhibaato ah aduu kugu soo noqon adduunkana waa lagaa jari آخرنا ولا قاتل أجو أما قال أهو أما مسلم أهو أما منافق أهو أما علمان السكلار أهو أما مد دين لا أهو أما مد دين سخال ضد أفهمي أهو وحاربت أهو أنا حسد هكو هيو يعقدد هذا ضدك مسلمين تأدباتيسيد والدين تأدباتيسيد ودمر كان مساكين أو حجابنا المها كرسني أدباتيسيد ومعلمين تكسيد أدباتيسيد وقف مسلم وكافة كم وايو وقو أذيقنا إلهي بالله على يساعي دقال كيسي وديار قرو قف مؤمن أدبه إلهي بؤدبه تبارك وتعالى ننكني صبحين وحو الدفاعي النبي صلى الله عليه وسلم وخادني إنو دلو قلب كينا والدفاعي والدين تسمينا إنو هيساني دين أبو بكر وإبكار أمري وسراقة المالك ساء أبدش هالدقيقة قدهد ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وإبكار أمري وعامر بن فهيرة وإبكار أمري
عبد الله بن أبو بكر ودب كان أمري وأسماء بنت أبي بكر دب كان أمريس وأي مرض يدي وحكة إنتي ويدي فقري هي أي جيح حيسو وأي أجوح الحريسو وأبو بكر حتى أنت أن مرينا وصسحنين سدح بريء يسدح حمين وصعده وهذا أنت النبي وارديني صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك يا أبا بكر أبو بكر وإلهها كرها لنغضب ولا واد قدتي حقي دينتنا كلها الواد قدتي رضي الله عنك وأرضاك إلهها كرها لنغضب واد قدتي الله وحي لقاك أبو بكر رضي الله عنك وأرضاك نبي حجتك كل مي صلى الله عليه وسلم بريدة بن حسيب الأسلمي أو تتضبات فردولية أيو النبي جدك كل مي صلى الله عليه وسلم نبي وواني وين إسلامين أيقا مركي إسلامين أيقا أي إسلامين بو نبي قلتوشيي صلاة عشاء بلتو كذين بريدة بن حسيب واد مقاشين عن بريدة بن حسيب الأسلمي وانك هاد ما نقول عن كشي كلمة وحديث كي لقوري اسم الله الأعظم كساب سنة لقوري وي وعكون النبي يقول لك كل ما صلى الله عليه وسلم زبير بن عوام أو كوح مسلمين كل حجر الله صعدة أو سفر شام كيمد بيوتان سفر لي وشام كيمد مركاسي وحيو النبي زبير سيي يا أبو بكر مروين على عد سيي أبو بكر يا النبي صلى الله عليه وسلم يوم طلع على عد أيو سيي أو هوية أنت أسمع ما أنت كل عارفينها أن صعد كالنبي صلى الله عليه وسلم يا قريش حالة دي ماشي كدن بيسي يا الصفة معبد أي نبي الصفيسي صلى الله عليه وسلم بالربا إن شاء الله تعالى أخرينا دروستان maanta waxaan ka faa'iideysanaynaa in kasta oo qaybo badan oo faa'iidadii aan hore u dhaxgelinay waxaan ka faa'iideysanaynaa diintan dhifkii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu soo maray iyo Abu Bakar iyo ciriiriga adduunyadu inay qiimo lahayn oo haday qiimo leedahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa inta madiino maka laga qaada buraaqo faras 1 second boodaya ba madiino la geyn lahaa laakiin waxa la rabaa qofku inuu dhibaatoodo oo uu sabro oo alla dadka uu kala saaro oo la ogaado midka mu'minka ah iyo midka munaafiqa ah iyo midka dul qaadanaya iyo midka diinta wax taraya waa wax la rabo qofka in ajirkiisa iyo amalkiisa aakhira lagu kobciyo way lagu kobciyo waa shopping way shopping center oo acmaasha laga shopping garaysta baan maanta joognaa meesha loo shopping garaysanaya waa aakhiro shoppingka la qaadanayana waa amalka saalixa ah amalkaaga saalixa ah iyo gargaarka diinta iyo ku dhaafin inta ka qaadan karta ka qaado dadka diinta iyo ehlu diinka iyo muslimiinta taageer oo difaac oo garab istaag oo walaalayso oo jeclow oo hadhibin oo isa soo dhaweysto oo isgaashaan buursada oo garabka isa saara oo qof walba qofka kale ha u noqdo kaalmeeye wallahu a'lam jazakum allah khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh birri insha Allah ta'ala waqtiga maanta oo kale ya insha Allah ta'ala darsiga bilaabayna jazakum allah khairan assalamu alaykum